السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله جواد السلامين ميل والبود أدونك جوكتان وحيد الله يكسر وهذا نجم MBR هالك دقة دامنا سنة و MBR قروح دمر إن عاو هالك محاربة إن الله بفرين وديرجلنا الله بقضب وآدي مهم وجوه كبدينا الصوماليات إن ما أركتها آدي وأنفعين هالكان كسر جديو ضد بدن أيا لجيابة إنه أنفعه قبل بدن أيا لجيابة إنه أنفعه إن شاء الله دولا أبود لك رالي نقضة أنا جنفتي ذا يا كل ديرجلنا أيوه نفتينا وكل ديرجلنا إن شاء الله إلى الصعود qodobka u koowaad waxa waaye gabar yahay hadaad leedahay gabar maanta aad tahay gabadhan ka bilaabina hadaad tahay maanta gabar oo dhalinyaro ah oo maanta guriga hooyadeed iyo aabaheed joogta ama aan joogin wax barasho ku jirta hadaad tahay ama gabar yar oo dhalinyaro hadaad tahay walaasheedii noloshaada iyo timekaada adiga iskale Soomaalida waxa u malaysaa gabadha markay 20 sano gaarto inay duqowday waa lagu pressure gareynaa xoogaa lagu saaraa laakiin waa inaa aamintid noloshaada lifekaada adiga iskale intaad xanqalka u taagaysid guur waa inaad marka hore guur calafkiisa ku imaanayo kamana hormaraysid kamana dibdhacaysid waqtigiisa iyo xilligiisa ku imaanayo age-ka rabtid gaar xilliga rabtid gaar xilliga uu ilaahay kugu talagalay buu ku imaanayaa dad badan oo waxaa jira gabdhaha markay maartay 20 sano gaaraan ku dhaga hadlaan way weynaatay may guursanin maxaa daaray maxaa ka qaldan tafuush kugu furayo no way ha dhageysanin waxaad u istaagtaa sida aad adigu naftaada u maareyn lahayd sidaad adigu adduunkan maanta dadka joogo caqibadaha badan aad bari uga kaaftoomi lahayd sida aad adigu maanta aqoontaada aad meer sare u gaarsan lahayd maanta jaanis aad haysataa gabar baa tahay ilmo kulama xiriiraan nin mas'uuliyadiisa kuma saarno family kale maya gabar baa tahay jaanis baad haysataa waxbarashadaada ku dadaal isku day meesha aad xanqalka u taagaysid nin lacag leh oo aad nin lacag ka sugaysid inaad adigu aad income samaysatid aad adigu lugahaada ku istaagtid oo adigu aad noqotid naag financial independence aanan aboowe u daba taagnayn aanan qof kale u daba taagnayn aanan ayada qabo u daba taagnayn financially independence inaad noqotid isku day jaanis baa haysataa don't waste your time inaad nolol la wadaagaysid noloshaada ku xirin ma garan kartid qofkan ilaa meesha kula sii socon karo laakiin naftaada waad ogtahay ilaa meesha kula sii soconayso naftaada waxay kula soconaysaa ilaa maalinta ay ka tagayso oo adduunkan aad ka tagaysid intaas ayay naftaada kula soconaysaa naftaada ayaa muhiim ka tahay naftaada ayaa muhiim ku ah naftaada ayaa mas'uul ka tahay qof aad xiriir la wadaagtay ama guur aad la wadaagtay ma garan kartid meesha idinku dambeyn doonto ma garan kartid ilaa intaad wada noolaan doontiin ma garan kartid laakiin hadda gabar baa tahay jaanis aad haysataa waqti baad haysataa xanqalka intaad u taagi lahayd nin lacag leh gabdho badan oo commentsiga waxaad aragtaa mar walba ka baryay ilaahay nin lacag leh intaad ilaahay ka baryaysid nin lacag leh adigu ilaahay ka baryay inuu lacag xalaal ah uu ku siiyo adigoo sharaftaada qiimahaaga diintaada ilaashanayo haddana isku day inaad aqoontaada diin iyo maadib iska dhigtid maanta adduunkan la taagan yahay waxa wax ku qabanayo aqoontaada diin iyo maadib inaad dhistid haddaa gabar tahay gabadhaas ayaan leeyahay dhag ha u dhigin inta sanood gaartid gabadha waa gabadhaas waxaa ku soo hartay gabadha xaaska ah ama gabadha single mother-ka ah haddaad qodobahan aad leedahay waxaa tahay gabar wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh ninka ku helana nasiib asaga leh kii intuu ku hela hadana ku fasaxayna asaga handicap ah oo nasiib daran oo hooyadiis aabiis ay soo habaareen adigu waxaad qabtid male niyadaadana mar walba qeyr u sheeg madaxaadana hoose u foorarinin nafta yarta ah waxba ma sheegayso gabadha hooyada ah gabadha single mother-ka ayaa la hadlaya intii hore gabadha waxaa la hadlayay aan wali la guursanin inta ay nafta kugu jirto oo naftaadu dhaqdhaqaaqayso still rajaal leedahay intaad nafta ay kugu jirto oo naftaadu dhaqdhaqaaqayso oo adduunkan aad koob biyo ku leedahay qof nool oo xay ah baa tahay oo qiimo iyo darajo leh oo adduun iyo aakhiro u shaqaysan karo haddaad caafimaad qabtid lixaad qabtid oo ilaahay caafimaad ku siiyay qof waxba kaama gelin inta ciyaal aad dhashay waxba kaama gelin cimrigaaga intaad soo qaatay hooyo soo noqo no problem hooyaan wada nahay hooyo soo noqo ceeb ma aha at the same time naf baad leedahay naftaada waa inaad ogaatid
inaad tahay hooyo haddana inaad adigu naf leedahay oo naftaadu stiil ay qiimo kuugu fadhido ood nolosha intaad adduunka nooshahay aad ku raaxaysan kartid ood wax kasta qabsan kartid wuxuusan ilaahayga waaxidku inaan raalli ka ahayn markii laga soo tago inaad adduunkaada u shaqaysan kartid aakhiradaada u shaqaysan kartid isqurxin kartid wax qabsan kartid nolol samaysan kartid hor u socon kartid waa inaad believe garaysan tahay gabdhaha waxa lagu qalbi jabiyey waxaa waaye waa la furay waxaa maxay sheegaysaa waa la soo furay single mother waaye way daalan tahay waa gaari qataara oo maaragtay nolosha ka dhacaa laleeyahay meeqa ninaa soo furtay meeqaa saanaa soo furtay meeqaa kan yeeshay waxaasay maanta dhan la meeray adigu dhegha u dhigin hadda daraad waxaan arkayay video aan dhankaa tiktok kusoo boos gariyay wiil comment kasoo bixi oo gabdhaha caynayo candhaa tahay naayaa candhay haysaan adigoo candhadaada saane excuse me hadduu adiga candho aad leedada cawro leeda asagaba cawruu leeyahay haddii adiga lagu soo furay asagaba gabar buu furay yaase wax furaa ma gabadhaa wax furto mise horta ninkaa wax furo haddii ilmihii shalay ee ilaahay dhexdiina ka dhaliyay adiga aad dhabarka u adeegtood qaatay lagugu aflagaadeynay kan kugu aflagaadeynay waa loser wax walba ka liita adduunka wax yaalo dhan uu ka liitaa wax kastoo adduunka yaalo oo ugu liidan buu kasii liitaa wax macno lama ah marka gabdha waxaad arkaysaa toxic marriage ku jiro oo guur waxay ku jiraan xun waa la dilaa wala caybiisa bil lama siiyo lama wanaajiyo lama ixtiraamo lama respect gareeyo way silacsantahay way rafaasantay ma hadli karto because of shalay la soo furo hadan waa wixii lagu furay qabtaa alaleey intaasay ka cabsanay ma aha in la isfuro qofka inuu hadlo xaqiisa u doodo xaqiisa u soo dhacsado ma aha inuu dhaho qofka ifuro marka mar walbaba kalsoonideena 100% ha ahaato marka waxyaabo badan oo waxa arkay gabdhaha lagu bahdilayo laleeyahay candhaysaan hadduu adigaba candha qabtay asagaba candha wuu qabaa cawra haddii qabtay asagaba cawra wuu qabaa marka waxyaabahaas yaani lagu qalbi jabinin 10 hadday ku soo furaan stiil qof nool oo socdaa tahay oo sharaf leh intay nafta kugu jirto oo xayi aad tahay oo neefsanaysid oo lixdaadi lixaad aad qabtid oo caafimaad qabtid oo ka ciisid oo soo seexanay soo ka ciisid ilaahay u mahad celi waxna waad qabsan kartaa waxna waad taran kartaa noloshaadana hor u wad بلي آدم وشاذا كوحرين لايف كذا نفتاد إلهي كسكو وادي قاعد سكلا بيز الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.